السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal halkaad iga daawanaysaan waa youtube channelkayga cabdalla muxya isku soo naqad wanaagsan maalin wanaagsan habeen wanaagsan hadba waxay ku taa wanaagsan muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa gabagabadii iyo gunaanadkii safarkaygii looteriga ee aan hore uga soo hadlay min bilow ilaa dhamaad isagoo maaragtay dhamaad ayana xataa waxaan dhaho ilaa dhamaad marka muusan dhamaanin marka waxaa la dhahaa qaybtii ugu dambeysay yani safar walbo bilaawdo ama maaragtay wax walbo bilaawdo dhamaad ay leeyihiin marka insha Allah halkaan maaragtay kusoo gudbin doonaa gunaanadkiisii muxuu ahaa gunaanadkiisii sida labada socotaan يعني dadkii hore ila socday hadaadan maaragtay hore ila socon waxa ka codsanaa muuqaalada ugu horeeyay ee maaragtay aan kaga hadlaay safarkayga looteriga markaan xareystay markuu ii soo baxay markaan Mareykan imaaday maaragtay sharciyadii markaan xareystay wax oo dhan soo fiirso kadib videogan ama hadii kale waa ku wareeraysaa marka insha Allah markii ugu dambeysay waxaan ka hadlaay waxay ahayd maalinkan maaragtay dhalashada Mareykanka interviewgiisa aan maraayay maaragtay si aan u qaato oo aan ku soo baasay kadib dambe idinkuma soo noqonin oo maaragtay waa iska mashquulay marka alxamdulillah markii aan interview waa ku baastay dhahay isla maalinkii waxa la ii soo dhajiyay dhaarta ina maaragtay meeshaan waa la dhaarnaa xal leeyahay wadankeena maaragtay dambi aanan ka galaynin waxaan ku dhaaranayaa in maaragtay cadow haduu wadanka soo weerar in maaragtay aan available qanaayo oo maaragtay diyaar ahaanayo yani ina maaragtay dambiile naqanayn adu waxyaabo badan maaragtay lagu dhaaranaa gacantaas u taagaysa marka dhaartaas ay waxaan maray December 13keedii kadib waxa la soo siiyay shahaadadii dhalashada ahayd shahaadada dhalashada marka xareysatid oo markii lagu soo siiyay markii lagu soo siiyay shahaadada dhalashada kaasa waxa ku xareysan kartaa marka baasaboorkii ugu dambeyntii baasaboorkii waa xareeyay hadii aad degdegsan tahay baasaboorka maalinkaas aad xareysay isla maalinkii aad qaadan kartaa lacag extra ah maaragtay aad bixinaysaa express laha hadii aadan degdegsaneen oo yani degdegta oo maaragtay waali ah isan kugu jirin oo maaragtay balse inaad safartid aad rabtid bil kadib waxa bixinaysaa lacag kale oo extra iyadana waxa kugu imaanaysaa ilaa 3 isbuuc 4 isbuuc balse hadii aysan degdeg kugu jirin oo anigoo kala aata oo safar kugu jirin oo iska sugi karto waxaaga yani waxay kugu qaadanaysaa 6 isbuuc ilaa iyo 8 isbuuc marka caadiga asaga sugaayay ugu dambeyntii maxaa ii imaaday baasaboorkii alxamdulillah marka gabagabadii iyo gunaanadkii kanu ahaatay فانت marka imaatid inta oo aad maaragtay shaqeysatid oo maxaa la dhahaa aad waxda barnaamijyada waxbarashadaada aad gashid 5 sano markay ku buuxsanto aday 4 sano iyo 9 bilood markay ku buuxsantaa la xareyn karaa yani waxa loo soo orday kanu ahaa marka alxamdulillah waa ii imaada baasaboorkaygii yani gabagabadii iyo gunaanadka waa ninkan marka meeshan kale waxa ku haystaa saddexdeedii baasaboor ee maaragtay Soomaaliga ahaa intaan maxaa la dhahaa aan baasaboorkan xareenayo oo aan sugaay ilaa 5 sano la gaara aan ku safraay midkan ugu horeeyo waa kii markaan looteriga xareenayo waxa ninkan waxa abaal weyn loo haayaa wuxuu iga dhacay 2017kii midkaan Mareykanka ku imaaday oo maaragtay markaan interviewga marraba aan sameystay because uu iga dhacay kaas oo wuxuu dhacay July 2017 ku dhacay baasaboor 6 bilood iyo maaragtay ka yar dhicrabo lama siiyo fiiso oo lama saaro fiiso marka isla markiiba interview intaan la ii gaarin baasaboorka dalbada Qaahira ka dalbaday 2 bilood iga maqnaa waa ii imaad alxamdulillah marka midka Mareykanka soo gala kan uu ahaa hatta xamara ku aaday 2019kii midkaana maaragtay si dambeeyay oo sanadkii ugu dambeeyay hadda aan ku safra isagana oo maaragtay aan ku tagay Turkiga alxamdulillah marka hadii aadan maaragtay baasaboor Mareykan aadan haysanin oo aad haysatid baasaboor Soomaali iyo green card wadamo badan aad tagi kartaa yani fiisi ina xareystid maaragtay kaliya ka xiran laguma adkeenayo oo waa lagu siinayaa fiisooyinka wadan alaali wadanka rabtid waxay ku xiran tahay fiisada maaragtay aad xareysanaysid kasoo qaata Turkiga marka aadayo kala aniga baasaboorka Soomaaliga iyo green cardka maaragtay iskula xareystay fiisa waxa la dhahaa xareystay isla markii ay soo approve gareeyaan oo igu maysan dhibin airportka marka ku safraayna markaan tagayna yani marka Mareykanka baxay ilaa Turkiga aad tagayna cid qashqashaada oo wax ay dhahdana ma jirin because baasaboorka Soomaaliga iyo green cardka watay markaan soo noqonayo Mareykanka soo noqonayo waxa maaragtay su'aalo badan liibaytay yani laangab ina hali dareensiin baan waxaan dhahay idin soo qaato gorgorkii ugu dambeeyna gorgorkii aan soo qaatay alxamdulillah oo ii imaaday marka yani
asxaab lottery dadka lottery xareysanayo journey-gayga safarkayga maaragta idinkaga sheekay kaas camal idin sugaayo wax oo dhib badan maahan marka lottery xareysatid uu kuu soo baxo interview waa mare interview markaa martid fiisada lagu siinaa fiisada markii lagu siiyo wadankaana imaanaya waa shaqaysanaysaa waxaa baranaya haddaa rabtid kadibna maaragta muxuu ahaa 4 sano iyo 9 bilood maalinkaa gaartid waa xareyn kartaa aniga waxaan xareeyay 4 sano iyo 10 bilood markay ii buuxsantay waa yara mashquulay March inaan xareeyay ahayd April 25 aan xareeyay April 25 markaan xareeyay waxay igu qaadatay in maaragtay isla 4 days kadib waxaa la ii soo dirabo maxaa la dhahaa inaan farihii soo maro kadib waxaa xigtay October 17keeda waxaa ii soo dhacday warqada in interview aan maraayo November 23keedii November 23keedii markaan interviewga marsada idin maaragtay hore idin kugu sheegay YouTube waa soo galiyay hore oo fiirsan kartaan su'aalihii la soo weydiiyay waxaan aragtay sida aan maaragtay waxyaabihii dhan la weydiiyay iyo su'aalihii sida ahaayeen ma adko su'aalaha 100 su'aal maaragtay oo buug ku qorana akhrinaysa 100ka su'aalooda maaragtay 10 su'aal laga weydiinaa 6 su'aal kaliya inaad ka jawaabtada laga rabaa iyo qoraal waa ka soo sheekeeyay dib ugu noqda kadib marka interviews uu soo baxay intaanan maaragtay xaafadda imaaninba warqad waxay ii soo galiyeen online ka fiirsaday in maaragtay dhaarta la ii baramiyay dhaarta waxaa maray December 13keedii December 13keedii shahaadada dhalashada la soo siiyay kadib baasaboorkii xareey baasaboorkan wuxuu iga maqnaa 8 isbuuc iga maqnaa ugu dambeyntii baasaboorkii waa ii imaaday alxamdulillah waa hadda aniga iyo safar dalmar inaan qadaar raba insha Allah marka safarku waaba intaasba yani marka maanta videoga waxaan dhigi karnaa gabagabadii iyo gunaanadkii safarkaygii lotteriga waa yani maaragtay wax walba bilowda dhamaaday leeyihiin safarka lottery wuxuu ii soo bilowday 2015 bishii 10aad October markii la xareynayay 2016 ii soo baxay maadaama case-kayga 41 kun iska ahaa interview waxaa maray 2017kii bishii 5aad 22keedii fiisadeedana waxaa la soo siiyay June 21 yani 3 isbuuc waxaan ku jiray maxaa la dhahaa administrative process isbuucii saddexaad dhamaadkiisii issued li dhahay isbuucii afaraadna fiisadeeda gacanta ku haystay Mareykan waxaa imaaday June 28keedii alxamdulillah interview xataa waxaa ku arkay gabar sideed camal ahayd June 28keedii timaada wadanka isku maalin interview aan marnay isku maalin dhaarta aan marnay qoftaasi aan isku safar ahayn marka alxamdulillah marka insha Allah dadka lottery ku guuleystay guul ay rajeynayeen inaan inta isku aragno maxaa la dhahaa dadka xareystay May 6 aan oo balan haduu Ilaahay yiraahdo in maaragtay aad guuleysataan haduu Ilaahay yiraahdo wixii su'aalaha qabtaan commentiga igu reeba maaragtay barnaamij maxaa la dhahaa muuqaalkana like saar insha Allah si asxaab oo maaragtay cusub share-na dhaha si asxaab cusub maaragtay oo kasbano oo idinka camal oo wanaagsan aad idin salaamaya marka journey safarkayga lotteriga intaas uu ku egyahay waa inoo muuqaal kale oo qurux badan insha Allah aad idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh